السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسر دوادا برنامج كان نقوم قعدرني أقوني أبا المرين وبرنامج شيدات كسؤال كهري دونان أي أبا المرين كهري دونان مركز سؤال لويديو يلا برنامج كننا وياهاي مت تضباط كستات كدا وان دونتان تلفزيون عالمي أريال تي في متكم إذا اللي يراد الصومالي لان أي بربر كي جتاجن إن مقع جامر كوره ولا عندنا حرجة ولا لا عندنا الرأي إن برنامج هو برنامج كي أقون يا بالمرين وبرنامج أن ضدك وقلت لك الله حتى يسكت ضيان أما يكتشوا بين سؤالها نويدينه إن برنامج كان دوري إن كله وذاك وحوي سؤالش أما أنا مكتاجنا كويدين واحد سيكتها صدق سورة وقرآن ككمدة وحرف ككاف أنا مير لك كجيل إن هذا سؤال شيء يسكت ضيو إن صدق سورة وقرآن ككمدة وحرف ككاف أنا مير لك كجيل إن إخلاص بكم ذا إن سورة كليك وحكتها حويان قل أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس بان ملينا جواب تاسيقي بكمدي وصح لكن واحد صح ما وضعها waxaan markaa rajeynaa inaan iyadoo sax cid ka wada jawaabto aad baan mahadsan daawadayaal barnaamijka aqooniga balmarin imikana waxaan taaganay goob kale magaalada Hargeysa su'aalaha aanu dadka weydiinayna waa su'aalo kala duwan oo isugu jira maadi iyo miid iyo diini su'aasha aan doonayo inaan toddobaadkani weydiiyo ama aan la wadaago waxaad sheegtaa nabi kamida laba nabi oo kamida nabiyadii sallallahu alayhi wasallam ama laba nabi oo jira oo ina soo maray oo labada nabiba ku ay ku abtirsadaan magac hooyadu bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil aalamiin salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam insha Allah bidna kan waxa weeyaan haddaan isku dayo su'aashaasi jawaabteeda waxa weeyaan Ciise ibn Maryam weeyaan mid nabi labaad ma oo isaguna maartay hooyadu ku abtirsada kaas kale imka ma hayo jawaabtaasi sidaas sax ku wada ahayn in waxa sheegtaa saddex suuradood oo quraanka kamida oo aan xarafka kaaf meel kaga jirin وشاكتاس aad baad mahadsantahay in mar kale iyo goob kale waa mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku sugan suuqyada kala duwan ee magaalada waa barnaamijka aqooniga balmarin su'aasha aan doonay inaan ku weydiiyo adigoo marka hore magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa Xamse Maxamed Faarax maxaad is leedahay waad ku wanaagsantahay ama marka wax laga weydiiyo waad ka jawaabi karaysaa waxaan is leeyahay waad ka jawaabi karaysaa su'aal walba la weydiiyaba su'aasha aan doonay inaan ku weydiiyo waxa weeye waxa sheegtaa oo su'aal aan hore dad weydiiyay tahay waxa sheegtaa laba nabi oo magaca hooyadood ku abtirsada nabi Ciise iyo nabi Muuse jawaabtu sidaasi sax kuma aha wali waxaan doonaynaa cid si sax uga jawaabto jawaabtaasi oo sax daawadayaal waxaanu taaganahay goob kale oo kamid ah magaalada Hargeysa iyadoo barnaamijka aanu qaybinayna aan dadka la wadaagaynaa uu yahay barnaamijkii aqooniga balmarin su'aasha aan doonayno inaan dadka la wadaagno ama mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliland aan la wadaagno soo abaalmarin helo hadduu ka jawaabo su'aalahaasi marka hore Xamse magac Xamse Ibrahim Muuse in Xamse Ibrahim Muuse waa su'aasha maxaad is leedahay talo wad ku wanaagsan tahay hadii la weydiiyo wad ka jawaabi lahayd kulleen su'aaluhu de sidii ay noqdaanba diiniyana de qof waan soo aad baan soo dhigtay de wax qofka bilaadanka hadii wax la weydiiyo bilaadanku waxna uu garan karaa waxna uu garan waayi karaa ma oran karo waan garanayaa ma oran karo mana garan waayi karo wixii kale su'aashu wixii ay noqoto hadii aan gartana waan isku dayayaa hadii aan gartana halkeeda hadii aan garan waayana de kullu cilmigu uu balaaran in su'aashani waxa ay la xiriirtaa dhaqanka si isku tinxuso kulley kuma xumi dhaqanka Axmedow in badan baad ka wareysaayo waqtiyo badan waxbaan isaga soo joognay dhaqanka laftigiisa in badan uu iga baxsan yahay laakiin kulley dabcan waxaan garan waay karaan uga dhici karaa haddaba su'aasha aan doonayo inaan u soo guddago ama aan weydiiyo Xamse waxay noqonaysaa sida aynu naqaano Soomaalidu waxay caan ku tahay dhaqashada xoolaha iyo fardaha iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee imkaaniyaadka su'aasha aan doonay inaan la wadaago waxa weeye waxaad sheegtaa arigu markuu boqol gaadho waxa loo yaqaanaa tiro geelu markuu boqol gaadhana waxa loo yaqaanaa kadin farduhu marka ay boqol gaadhaan Soomaalidu maxay u taqaanaa farduhu marka ay boqol gaadhaan waxay gaadhaan waxay noqdeen wallahi su'aasha kala waa turuma filaya way jawaabtaasi sidaasi sax kuma aha waxaan doonaynaa inaan jawaabtaasi oo sax cid ka jawaabto aad baad in mar kale
waxaan doonayaa inaan qof barbarkayga taagan ama mid ka mid ah dadweynaha ku sugan suuqa magaalada Hargeysa aan la wadaago su'aalaha aan ugu talagalay inuu TV-ga Ariel idin baahiyo ka bacdina idinkuna aad ka jawaabtaan jawaabta ka bacdi qofkii ka jawaabaano oo abaalmarin helo su'aasha aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa weeye waa su'aal diini ah diinta isku tig inta ii bedel aniga su'aal kale igu bedel su'aashu waa waqtiga nasiib inay kaba fududaataa laga yaabaa su'aalaha aan dadka kala weydiinaya su'aasha isku day su'aashan waxa weeye waxa sheegtaa laba nabi oo ku abtirsada magaca hooyadood ma garanayo nabi ciise kow raay degal markaa wadeen watan kuli bedel sootan kuli su'aasha ay bedel markii hore aniga su'aashu waa waqtiga nasiib waa qoritoor qofkii su'aasha ku soo hagaagta ayuu nasiibkiisa isku dayaya wax naga weydiiyo aad baad maasantay su'aaluhu waa su'aalo istaba yaala ilaa imika saddex su'aalood baan wareegaya wali wax ka jawaabayna ma hayno su'aasha aan doonayay in imika laga jawaabo oo waa su'aal aan halkan ku weydiiyo qof ka mid ah in marka hore magacaaga iyo waxaad qabato iyo waxaad isleedahay tolo waad ku wanaagsan hadii lagu weydiin lahaa waxa ay waxaas ku wanaagsan su'aashii hore ma aadeli garan waayay hay igu celinay mid kale igu bedel aniga kulay waxaad sheegtaa su'aasha waxaad sheegtaa aan doonayay inaan ku weydiiyo waxaad sheegtaa saddex suuradood oo quraanka ka mid ah oo xarafka kaaf aanu meel kaga jirin kaaf tani xagga diinta xoog ma yaqaan dadka gaadhay diinta quraanka ilaa 9 ma ka gaadhay aad baad u mahadsan tahay in xagga dhaqanka igu bedel aad baad u mahadsan tahay aad u mahadsan waxa barbarkayga soo istaagay mid ka mid ah dadweynaha ku sugan suuqa kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo barnaamijkuna uu yahay barnaamij wareegaya oo goobo kala duwan iyo xirado kala duwan aan dadka su'aalo kula weydiinin barnaamijkuna waa barnaamijkii aqoon iyo abaalmarin in marka hore magaca Muuse Cawaale Jaamac baa magacayga Muuse Cawaale Jaamac in barnaamijku waa barnaamijkii aqoon iyo abaalmarin maxaad is leedahay tolow hadii uu TV-ga maanta weydiin lahaa waad garan lahayd oo abaalmarinta waa halkaas aad la mari lahayd waxa weeyaan de kulay geela hawlaha geela iyo de ragga xiriya u wadi jiray baarqabada ku dari jiray nirgaa ka reebi jiray dheehay dhuuriyada sidaada u dhigaan dhagaa go'an ma adiga dhalay ya ay markaaga iyo caanahaagaan calooshay tagin oo cudwaaga leh waxa weeyaan waxa kale oo aan odhan lahaa gooday geesigu geelaan diid geerina u dhow waa sax aynu hamuun kululaayo ragga haya soo horaya hawlo adaga ya waa sax kulay waa in su'aashayduna waxay ku qotontaa dhaqanka haday geela noqoto haday fardaha noqoto haday xoolaha kale ay Soomaalidu dhaqato noqoto waa su'aal in yaro gabayo geela ma sheegaba ma ku dara su'aasha horta ka bacdi baan ka qabanaynaa su'aasha waxaad sheegtaa in xoolaha sidaynu naqaano arigu markuu boqol gaaro waxa loo yaqaanaa tiro geeluna waxa loo yaqaanaa kadin fardaha ay Soomaalidu caan ku tahay markay boqol gaaraan maxaa loo yaqaanaa geela waxa loo yaqaanaa markuu boqol gaaro kadin ariguna tiro fardu markay ay gaaraan ay boqol gaaraan horweyn jawaabtaasi sidaasi sax kuma wadaha aad baad macsan tahay inta aad baad macsan tahay kaga jirnaa barnaamijkii aqoon iyo abaalmarin ee aan ugu talagalay inay dadku su'aalaha ka jawaabaan annaguna haddii ciddii ka jawaabta aanu abaalmarin dib uga celinno inkastoo ay su'aaluhu ay soo wareegayaan haddana weli seemaanaan helin cid jawaab sax ka bixisa su'aalaha aanu doonayno inaan dadka la wadaagno iyagoo su'aaluhu ay isugu jiraan qaar diiniya qaar maadiya iyo qaar dhaqanka Soomaaliyeed weli waxaan doonaynaa cid ka jawaabta su'aalaha aanu doonayno inaan la wadaagno su'aalaha aan doonayno inaan dadka la wadaagno waa inta badan waxaan culayska saaraynaa toddobaadkani iyadoo toddobaadada ay kala duwanaayeen qaar dhaqanka ay u badnaayeen laakiin toddobaadkani su'aalaha iyagu waxay u badan yihiin diini iyadoo culayskana aanu saarayno maadaama bishii Ramadaan ay foodo inagu soo hayso inaynu xagga diinta aynu culays ka saarno waxaad sheegtaa aan doonayaa inaan kula wadaago adigoo magacaaga ku bilaabaya laba nabi oo magaca hooyadood ku abtirsada nabi ciise nabi idris jawaabtaasi qayb ka mid waa sax laakiin sax ma wadaha aad iyo aad baan kaaga mahad celinaa isku daga wanaagsan ee aad isku dayday marka hore magaca bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la Cabdiraxmaan Gaad Cabdiraxmaan Abubakar Maxamed Cabdiraxmaan Gaad ku magac dheer barnaamijka waa barnaamijka aqoon iyo abaalmarin dadka doonayeen inay abaalmarin ku helaan haday su'aalaha ka jawaabaan su'aasha aan doonayeen inaan ku weydiiyo waxa weeye
maaha su-aal si adag marka dhinac laga eego waxaad sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood laba nebi waxa weeye horta mid waxa weeyaan waa nebiyullaahi ciise ka kale waxay noqonaysaa waan malaynayaa yoma eliyas baa talo yaa nin nebigaa kala garan maayo aad baad umahadsantahay qayb ka mida su-aashaasi waa isku dayay waana ka jawaabay laakiin jawaabta oo saxa ayaan doonaynaa inaan helno marka hore magacaa marka hore magacayga waxa la yidhahdaa jaamac saciid ismaaciil jaamacow barnaamijku waa barnaamijka aqoon iyo abaalmarin aan dadka ugu talagalay inay su-aala ka jawaabaan iyaguna ay abaalmarin helaan ciddii jawaabtaas oo saxa ka jawaabta su-aasha aan ku weydiinaynaa waxa weeye horta maxaad leedahay waad ku wanaagsan waxaas lee ku wanaagsani anigu abaalmarin meesha umaan manin dekeddaa la iibiye laysku xisaabaan moodaya in meesha dee la wadwado haddaan taa la wadwadin waa mahadsantihiin adaa mudan marka hore magacaa magacaygu waa cabdirashiid maxamed ismaaciil cabdirashiid su-aaluhu horta barnaamijku waa barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ariel t v idiin diyaariyey iyagoo su-aaluhu ay isugu jiraan diini dhaqan weliba toddobaadkani ay u badan yihiin diini maadaama bishii rabadaan fooda inagu soo hayso maxaad isleedahay tolo waad ku wanaagsanto hadduu t v ku weydiin lahaa maanta jaaniskaa uu ku siiyey waad ka faa'iidaysan lahayd maya xagga dhaqanka iyo xagga diintaba xoogaa wan ka maqmaqlay intulayno su-aasha aan doonaya inaan ku weydiiyaa waxa weeye waa su-aal diiniya waxaad sheegtaa laba nebi oo ku magac tirsada ama ku abtirsada magaca hooyadood ciise iyo ka kala garamaya aad baad u mahadsan tahay jawaabtaasi oo saxa inkastood qayb ka mida garatay aad baad u mahadsan ka qaybqaadka daawadayaal weli waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkii aqoon iyo abaalmarin iyadoo dadweynaha kala duwan aanu su-aalo ku weydiinayno iminkana waxaanu ku sugannahay qayb ka mida magaalada hargeysa ama maqaaxyaha laga shaaheeyey bartamaha magaalada hargeysa annagoo su-aalaha doonayna inaan weli cid la sii wadaagno iyadoo su-aaluhuna ay toddobaadkani u badan yihiin su-aalo diiniya ayaa weli su-aalaha iyo barnaamijkaygii aanu bartanka kaga jirnaa toddobaadkani su-aalaha aanu dadka weydiinaynaa waa su-aalo diini u badan iyadoo barnaamijku inuu yahay barnaamijkii aqoon iyo abaalmarin su-aasha aanu doonayno inaannu toddobaadkani weydiinno dadweynaha waxay noqonaysaa sidan marka hore adigoo magacaaga ku bilaabaya aniga khadar maxamuud aadan baa layidhaha khadar maxamuud aadan talow maxaad is leedahay haddii lagu weydiin lahaa jaaniskaa uu tv ku siiyey waad kaga faa'iidaysan lahaydee barnaamijyada su-aalaha dadka aynu weydiinayno dadka abaalmarin dib ugu celinayno su-aalaha aniga xagga diiniga diintaadu ma aqaan xagga dhaqanka iyada ka war dhaqanka waan aqaanaa su-aal haddaan ku weydiiyo dhaqanka la xidhiidha oo weliba xoolihii iyo waxyaabihii kala duwanaya ay soomaalidu caanka ku hayd ka mid a masladahay talo waad garanaysa hadda waan garanaya xoolaha haddaba su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye inta badan soomaalidu iyadoo caan ku ah xoolaha dhaqashada geela adhiga iyo sidoo kale fardaha waxa loo yaqaano adhiga markuu boqol gaadho waxaa loo yaqaanaa tiroso sidaynu wada naqaan geelana waxaa loo yaqaanaa kadin fardaho ay soomaalidu waxyaabaha ay ku faanta ay tahay markay boqol gaadhaan maxaa loo yaqaanaa fardaha ma aqaan adhigii xoolaha adhigii xoolaha aad maasanta marka hore waa mar kale iyo goob kale iyo anagoo bartamaha magaalada hargeysa ku sugan barnaamijkuna waa barnaamij loogu magac daray aqoon iyo abaalmarin iyadoo toddobaadkani aanu ku soo qaadanay su-aalo kala duwan oo badankoodu u badan yihiin diini marka hore magaca baashe maxamed leh baashe su-aal baanu ku weydiin doonnaa haddaad garato aad abaalmarin helayso maxaad is leedahay talo waad ku wanaagsanto haddii lagaa weydiin lahaa waad ka jawaabi lahayd xagga dhaqankan wax ka aqaana dhaqanka haddaba su-aashani toddobaadkani bakhtiyaa nasiibka ama aad ku mutaysatay inaanu ku weydiino waxa weeye waa su-aal diiniya su-aashaas waxay odhanaysaa waxaad sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadu xagga diinta waa lagaga badan yahay aad baad umahadsan tahay inay beddel yeelata laga yaabaaba waad isku dayeysaa su-aasha marka hore magaca cabdishakuur baa la yidhaha cabdishakuur waxaan ku weydiinaynaa su-aasha aad maqlaysay ahayd waxaad sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood mid waa nebi ciise
kaasu ma garanaya su-aashaasi qayb ka mida ayaad garatay aad baanad u mahadsantahay iyadoo dhammaystiran baanu doonaynaa inaan helo aad baad mahadsantahay su-aasha aanu doonaynaa inaan ku weydiino adiga waxa weeye inaad isku daydo ama aad ka jawaabi karto marka hore magaca maxaad qabataa maxaad is leedahay haddii lagu weydiiyo maanta waad ka jawaabi kari lahayd bismillahi raxmaan raxiim anigu waxaan ka shaqeeyaa kolley suuqan hoose wahayn magacayga waxa weeyaan cabdiraxmaan maxamed daahir kolley adigu fikirkayga wixii la weydiiyey wixii aan ka garanay insha allah ku jawaabi doonaa su-aashaan doonayna inaan ku weydiino waxa weeye waxaad sheegtaa 3 suuradood oo qur-aanka ka mida oo aan xarafka kaaf meel la kaga jirin su'aalaha diiniga waa laga fiican yahay saruntii ah aad baad u mahadsantahay aad baad diiniya waxaad sheegtaa 3 suuradood oo qur-aanka ka mida oo aan xarafka kaaf meel la kaga jirin meel la kaga jirin taaniyo uma garanayo bal isku dawadii kalaaba wadkii sheegay bal laakiin allahu iyo kallaa heedade intaasoo la xusuusnahay hadda tan baan doonaynaa in cid ka jawaabto aanu helo si ay dadkuna wax u faa'iideystaan annaguna si ay dadkuna wax u kororsadaan in waxa weeye waxa sheegtaa 3 suuradood oo qur-aanka ka mid ah oo xarafka kaaf aanu ku jirin mid waa alxamdulillah isku day inuu ku dhafato bal isku day su'aashaasi aan dadka la wadaagayno marka hore aad magaca ku bilaabay magacaygu waa Yuusuf Cabdilaahi Xuseen suuradaas waxa weeyaan waa suuratu والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسري 3 suuradood ba furo يا 3 suuradood oo quraanka kamida ومن 3 عصا 3 quradood oo 3 midna aanu ku jirin اوكي انت قالوا انه سوري سوري aad baad mahadsantahay aad dibad mid waa qol cudub barbinaas midna waa qol cudub barbar falaq saddexaadna adoo ku daray allah yaclam jawaabta maad wada garan laakiin qayb kamida waad garatay aad baad ugu mahadsantahay inaad isku daydo daawadayaal wali su'aalaha aanu dadka weydiinaynay aanu doonaynay inay abaalmarin helaan hadday gartaan ayaa wali sii socda anigoo mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliland ee barbarkayga taagan doonayay inaan weydiiyo marka hore magaca walaal magacay waxa la Bashir Marigaal Bashir oo su'aalaha aanu dadka weydiinaynaa waa su'aalo kala duwan oo maadi iyo diin isugu jira iyo dhaqan su'aasha aan imika doonayay adiga ku weydiiyaa waxa weeye su'aal diiniya كورن دينتا iyo seeskuti wallahi de kale diintana waa diinteeni aynu ilaahay nagu waajibeen daa haysano waa waajib intan daanu cilmi u leeyahay mooyaan laakiin waxa weeye waa waajib inuu qofku diintiisa waxaad sheegtaa magaciisa ninkii dakhray nabi maxamed dagaalkii Uhud suuray magaca ninka imaka ma hayo oo iga maqayay aad baad mahadsantahay inaad isku daydo aad baad mahadsantahay waxaad sheegtaa su'aashaas aan doonayna dib kugu celiyo su'aashii markaa inankii barbarkayga taagnaa aan weydiinayay waxa weeye su'aal diiniya waxaad sheegtaa ninkii dakhray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dagaalkii Uhud aqrab bin kacab su'aashaasi sidaas sax ma aha jawaabtaas sax ayaanu doonaynaa waxaad sheegtaa maxaad ku wanaagsantahay maxaad ku wanaagsantahay maxaad leedahay haddii lagu weydiin lahaa waad garan lahayd oo TV-gan channel-ka waad ka baasaysan waxaan weydiin su'aal diiniya ayaan jecelahay su'aal diini dhaqan diiniga waa sax waxaad sheegtaa in 2 nabi oo ku abtirsada magaca hooyadood 2 nabi ku abtirsada magaca hooyadood اللهم صل على محمد سيدنا محمد نبي عيسى نبي عيسى نبي كلا ما قرنا aad baad u mahadsantahay isku daga aad samaysay aad iyo aad baan kaga mahad celinaa inaad ka qayb qaadato barnaamijka aqoon iyo abaalmarin ee Ariel TV idin diyaariyay su'aasha aan doonayo inaan weydiiyo ama la wadaago dadweynaha waxa weeye aan ku weydiinay marka hore adigoo magacaaga ku bilaabaya iyo waxyaabaha aad qabato iyo waxaad leedahay hadii lagu weydiin lahaa chance-kani waad kaga faa'iideysan lahayd magacaygu ugu horeyn waa Mahdi aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan haddaan ku guulaysto haddaan garto su'aalaha la weydiiyay waan ka jawaabi insha Allah su'aasha aan isleeyahay toddobaadkani weydii ama iyadoo bishii Ramadaanna ay foodo inoogu soo su'aalo diiniya waxa sheegtaa ninkii dakhray
nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee dagaalkii uxid magaciisa ninkii nebi maxamed dakhray wuxuu ahaa abijahal maysaasi jawaabtaasi sax kuma aha aad baanad mahadsantahay isku dagayga su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye iyadoo horta barnaamijkan uu yahay barnaamijkii aqoon iyo abaalmarin ee Ariel TV u diyaariyay dadweynaha kala duwan si ay uga jawaabaan iyaguna ay abaalmarin helaan su-aasha aan doonayay inaan ku weydiiyo waxa weeye waxaad sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood bismillaahi raxmaani raxiim horta waad mahadsantihiin Ariel TV laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood mid waa nebi ciise midka kale ma garanaynin aad baad mahadsantahay isku dayga wanaagsan ee aad samaysay aad baan kaaga mahadcelinayaa ka qaybqaadashadaas waa su'aal aan doonayno inaan ku weydiino waxaad sheegtaa su'aal diiniya saddex suuradood oo quraanka kamid ah oo quraanka kamid ah oo aan xarafka kaaf ku jira adoo magacaaga ku bilaabay bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Hode Maxamuud Daahir oo ku magac dheer Odelkaas su'aasha haddaan isku dayo aan xarafka laam ku jirin kaaf ma garanay aad baad mahadsantahay waxaad sheegtaa marka hore adoo magacaaga ku bilaabay maxaad qabataa waxaan la yiraahdaa Professor Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud agaasimaha kormeerka dawladda hoose sideedda waxud baanahay waan salaamayaa barnaamijkeena Ariel aad baan kaaga mahadcelinaynaa adiguna ka qayb qaadato barnaamijkani adoo hawlahaaga ku jira aqoontayda Allah igu astiro waan galay waxaan su'aashan doonayna toddobaadkani ku weydiina waxa weeye waxaad sheegtaa ninkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dagaalkii uu xid dakhray bismillaahi raxmaani raxiim abu jahl ha baan u malaynayaa asxaabiga dakhray jawaabtaasi sidaasi sax kuma aha iyadoo sax aynan helan rajaynayna anigu waliba su'aasha adiga kuu bedeli doona su'aasha aan doonayna ku weydiiyaa waa su'aal dhaqana horta marka hore maxaad ku wacantahay dhaqanka diinta aqoonta kale maxaad leedahay haddii lagu weydiiyo waad ka jawaabi leedo jaaniskan waad kaga faa'iideysan adigu kolley dhaqankaan anoo isku dayin dhaqankaana ka tegayn maadaama haddaynu dad Soomaaliya nahay bal dhaqankaana waan isku dayaya diinigana dee inaan bartay way jirtaa oo dad muslima baan nahay su'aashan adiga ku weydiinaya waa su'aal dhaqana waxaad sheegtaa Soomaalidu inta badan waxa xoolaha noocyada kala duwan ee xoolaha ay caan ku tahay hadda ari hadii noqoto hadii geel noqoto iyadoo farduhuna ay yihiin waxyaabaha ay aad ugu faanaan waxa sheegtaa in inta badan geelu markuu 100 gaaro tiral waxa la yaqaan kadin arigana tiro farduhu markay 100 gaaraan maxay Soomaalidu u taqaanaa Allah su'aasha fardu niyow wallahi su'aasha wallahi ma hayo aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad isku dayday aad baad mahadsantahay Naasir Balad su'aasha waxa weeye waxa sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood waxa weeye horta mid waa ciise اللهم صل على محمد نبي كلام نبي هويدك وافسدا يوكا كلا مكارتا aad baad mahadsantahay aad iyo aad dawadayaal wali waxa barbarkayga taagan mid kamid ah dhalinyarada Soomaaliland barnaamijku waa barnaamijka aqoon iyo abaalmarin aan dadka su'aalaha ku weydiinaynay haday ka jawaabaan ay abaalmarin helayaan su'aasha aan doonaynay dadka weydiina waxa weeye sida aynu naqaano Soomaalidu iyadoo xoolaha iyo waxyaabaha kala duwan ee keeniyadka ku caanka waxa sheegtaa farduhu marka ay 100 gaaraan waxa loo yaqaan halka geela loo yaqaano tiro arigana loo yaqaano kadin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا السلام يا لكن ده بركة مقعد واحد أحمد محمد يوسف ده فردو مركب بقول قانا ورتوا بقول ترب بحوي ده إنك بريحنا من عرق تقال من إنجلني ما تشيل بما مقال ده فرس بقول قاري ولا ما عرق بقى بعد ما صنت su'aashan doonayay inaan kula wadaago ama aad ka jawaabto haddaad ka jawaabtana aan ugu talagalay inay dadka ka jawaabaya ay abaalmarin helaan oo TV-gu Ariel idin diyaariyay waxay noqonaysaa sidan adigoo marka hore magacaaga ku bilaabay intaanad su'aasha ka jawaabin waxaad sheegtaa ninkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee dakhray dagaalkii uxid magaciisa bismillaahi raxmaani raxiim anigu magacaygu yahay Cabdirashiid Caalin Cabdi ninkii dakhray nabi maxamed waa Abu Sufyaan jawaabtaasi sidaasi sax kuma aha iyadoo sax aynaanu helan rajaynayna waxaad sheegtaa ama aad isku daydaa inaad ka jawaabto adigoo magacaaga ku bilaabaya laba nebi waa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa maxamuud cabdi xaj farax marka laba nabi oo hooyadood ku abtirsada waxa weeyaan ma garanayso aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay daawadayaal weli barnaamijkii ayaanu ku sii siqaynaa guntiisii iyo gabagabadiisii iyadoo su'aaluhu ay weli taagan yihiin aan saaka cid su'aal ka jawaabta ay yar tahayba su'aashaan doonay inaan kula wadaaga waxa weeye waxaad sheegtaa 3 suuradood oo quraanka ka mid ah 3 suuradood oo quraanka ka mid ah oo xarafka kaaf aanu meel la kaga jirin xarafka kaaf بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه يا تبارك يا نون jawaab sidaasi sax kuma aha aad baad mahadsantahay isku dayga aad isku dayday in dadkuna hadday gartaan abaalmarin bay helayaan uu diyaariyey TV-gu waxaad ka jawaabtaa ama aan doonayn inaad ka jawaabto waxaad sheegtaa laba nabi oo ku abtirsada magaca hooyadood labada nabi waxaan u malaynayaa inuu mid ciise yahay midka kalena nebiga kale waxaan filayaa inuu yahay mid waa ciise bin maryam calayhi salaam nebiga kale allahumma salli calaa maxamed wuxuu ahaa nabiyullaahi daawud I think inuu yahay may jawaabtaas sidaasi sax kuma aha aad baad mahadsantahay marka hore in barnaamijku waa barnaamij aan ugu magac darnay aqoon iyo abaalmarin toddobaad kasta waxa uu ka baxaa TV-ga caalamiga Ariel TV iyadoo su'aaluhu ay kala duwan yihiin su'aalo diin ay u badan yihiin iyo qaar maadiya toddobaadkani waxa ay su'aaluhu u badan yihiin dhinaca diinta maadaama bishii Ramadaan ay foodayno ku soo hayso su'aashaan doonayay inaan kula wadaaga waxa weeye waxaad sheegtaa laba nabi oo ku abtirsada magaca hooyadood nabi waa nabi ciise ya nabiga kale ma garanayo aad baad u mahadsantahay inaad isku daydo oo qayb ka midna su'aasha ka jawaabto laakiin waxaanu doonaynaa inaan helo iyadoo dhameystiran cid ka jawaabto aad baan kaga mahadcelinaa ka qayb qaadashadaada su'aasha aanu doonayno ee ku xigta inaan weydiino mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland ee ku sugan suuqyada kala duwan marka hore magaca cabdikariin mahdi baraada mahadsantahay in cabdikariin su'aashani ma aha mid diiniya waa mid dhaqana maadaama Soomaalidu ay caan ku tahay xoolaha dhaqashada xoolaha noocyadooda kala duwan su'aasha aan doonayna ku weydiiyo waxa weeye inta badan arigu markuu boqol gaaro Soomaalidu waxay u taqaanaa tiro geelana waxa loo yaqaanaa kadin fardaho waxyaabaha ay Soomaalidu caanka ku tahay maxaa loo yaqaanaa markay boqol gaaraan farduhu wuxuu ahaa wegler miyaha wegan jawaabtaasi oo saxa ayuu gartay waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa inuu jawaabtaasi ka jawaabo tan iyo saaka intuu barnaamijku socday cid ka jawaabto su'aalahaasi maanaan hayn waa markii ugu horeysay ee su'aal laga jawaabo aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay waxaanu ku wareejin doonaa abaalmarinta aan ugu talagalay inuu ku mutaysto daawadayaal saaka oo dhan waxaanu ku guda jirnay tabinta barnaamijkani aqoon iyo abaalmarin iyadoo su'aaluhu ay kala duwaneen inkastoo ay diin u badnaayeen haddana su'aashani waxa ku guuleystay cabdikariin mahdi oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliland aad baanu kaga mahad celinaynaa bal ka waran dareenkaaga iyo saaka inaad su'aashan ma islahayd su'aal baad ku guuleysanaysaa uu TV-gu ku weydiiyo inta kale qorshahaaga saaka oo kale kuma ugu jirto may meesha wadada waa iska mareeyo waxaan arkay telefishinka Ariel meesha taagan dadka naxsiitro barnaamijkii baa laga hadlayaa siyaasadda dabeetana waa iska soo leexday marka si kadiisa baan su'aashina arkay barnaamij su'aalaad inuu yahay dabeetana si kadiisa baan loo kulmay abaalmarintii iyo su'aashiba aadna waan ugu mahadnaqayaa bahda Ariel TV oo dadka u soo bandhigay barnaamijkan oo runtii dhaqanka aad buu muhiim u yahay dhalinyarada waliba dhaqanka lagu dhiirigeliyo aad baan mahadsantahay aad baan kaga mahad celinaynaa aad iyo aad ayaad mahadsan tahay barnaamijka waxa uu ku sii dhow yahay guntii iyo gabagabadii iyadoo qofka ugu dambeeya aan su'aal weydiin doono maadaama barnaamijku ilaa saaka uu soo socday in qofka aan doonayo in aan su'aal weydiiyo ma isku daysaa su'aasha aan doonayo inaan ku weydiiyo waa su'aal ahayn waa laba qof baan ka dhigayaa barnaamijka maadaama lahaa qof baan ku weydiinaya laakiin adaan kugu horreysiinaya waxaa sheegtaa waa su'aal diiniya ka waran diinta sida isku tigi wallaahi waan isku fiican su'aashan aan ugu talagalay inaanu ku weydiino ma is leedahay waad ku guulaysan kartaa oo dareenkaaga bal ka waran haa waxaad haddaba sheegtaa su'aashan doonayna inaan ku weydiino waxaad sheegtay 3 suuradood oo quraanka ka mid ah oo xarafka kaaf aanu meel la kaga jirin
والعصر أيه الحمد فاتحة ذا يو كلمة هي تبط jawaabtaasi oo saxa muu garan aad baad u mahadsan tahay inaad isku daydo aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa barnaamijka waxaan doonaynaa inaan su'aalo weydiino oo abaalmarina helayaan waxaad sheegtaa 3 suuradood oo quraanka ka mid ah oo xarafka kaaf aanu meel kaga jirin waxa weeyaan 3 suuradood Soomaa suuradood oo quraanka ka mid ah oo xarafka kaaf aanu meel kaga jirin mid waa qul wale qul aad barnaas qul aad بالفلق may jawaabtaasi sidaas ayay qalad ku noqonaysaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijka in su'aasha aan doonayna ku weydiiyo wax sheegta oo aan doonayna ku weydiiyo dhaqan maaha waa diin toddobaad waxaynu toddobaadkan ka fuuriyeynaa maadaama bishii Ramadaan ay foodayna ugu soo hayso inaynu culayska iyo diinteena aynu saarno su'aashan doonayna ku weydiiyo wax weeye waxa sheegtaa ninkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dagaalkii u xid dakhray magaciisa ninkii dakhray ninkii nabi maxamed dakhray dagaalkii uxud waxa abjaal aad baad u mahadsan tahay jawaabtaasi sidaas sax kuma aha waxaad sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood labada nebi magacyadooda sheeg bismillaahi raxmaani raxiim waxa weyn horta mid ciise ibnu maryama iyo nebi sacad daawadayaal marba marka ka dambaysa waxaan ku jirnaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka su'aal qofka ugu dambeeya aan su'aasha siinayo waa inaan barbarkayga taagan aan filayo inuu arday yahay in marka hore magaca masleedahay in su'aasha wad ka jawaabi karaysaa ها سفيعا magacaygu xamse cabdullaahi in su'aasha aan kugu celiyay waxay oranaysaa waxa sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood waxa weeye ciise bin maryama iyo nebi yuunis weeye jawaabtaasi oo saxa ayuu gartay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan doonaynaa inuu abaalmarinta aan ugu talagalay aan ku wareejino waa qofkii ugu dambeeyay aanu su'aal weydiino isagoo barnaamijka aanu bilownay 7 saaka ilaa saaka barnaamijkan uu socday iminkana waxaan ku soo gabagabeynaynaa in magacaaga xamse cabdullaahi xamse cabdullaahi oo ku guuleystay su'aashii ugu dambeysay ahayd waxa sheegtaa laba nebi oo ku abtirsada magaca hooyadood waxaana ku guuleystay xamse cabdullaahi aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaysaa isugu dayday bal ka waran dareenkaaga iyo saaka ma islaahay su'aal baad heli doontaa wallaahi horta dariiqan iska socdo maanu filanaynba ya laakiin waa su'aal diimiyo waad garan kartaa baan sidin run ahaantii marka TV-ga Eryalna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa run ahaantii aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa daawadayaal intaasi waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka aynu ugu magac darnay aqoon iyo abaalmarin iyadoo barnaamijkaanu su'aalo dadka ku weydiinaynay dadku markay su'aalahaasi ka jawaabaanna aanu abaalmarin guddoonsiinaynay intaasi waxaa noogu dhan barnaamijkii aqoon iyo abaalmarin intaynu barnaamijkan lamida dib ugu kulmi doonno aniga iyo bahdii gala qayb qaadatay waxaan iskaga tegaynaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu